ugu horeynta gudoomiye waxa ku soo dhawaata warbaahinta Xogura News waa gartay ugu horeynta mudane gudoomiye waxa noo warbixisay xaaladda guud ee degmada Hobyo horumaradeeda iyo xaaladda ammaan sida ay tahay magaalada ammaankeeda mustaqbalka waxaana muddayn ku sii tallaabsan Soomaaliya ka tabasho marka dadka sida waxa saaray wax badan oo magaalada imkaaniyaadka nolosha inay ku aan xamadeyn ku sii dirayaan bulshada magaalada ku madax xamadeyn hore u socoto sidii ay shamare dadka Hobyo xamadeyn wadadii horumar ku taashay waa gartay in horumarada oo kale marka la sii fiiriyay ka waran dhinaca waxbarashada ammaanka iyo caafimaadka oo kale maxaa ka qabateen maadaama aad tahay gudoomiyaha degmada Hobyo wallahi inta ku sheegay magaalada waxbarashada iskuulaadka ayaa muhiim oo haatan ay wax ka bartaan laba boqol arday oo markii uu sharxay waxa iskuul ay dawladda ay u leeyihiin degmada ay maamusho leeyihiin magaalada Hobyo iskuulkaas ma dhacayo iyo tisho ama shaqo sidoo kale xeelaha bulshada xakamada in cashuur sida in ka shaqeeyo magaalada dadka magaalada xakamada عندك بسنتي المال الإسلامي يعني حشد الإنجليزي ومال الحياة الإنجليزي لا يكون حشد كل هذا المال محمد بن أحمد استقبله waa garta markii aan taas ka soo tagno waxa jiray wafdi ka socday qaramada midoobay oo dhawaan in soo gaaray balka wafdigaasi waxa ay ku socdeen iyo kulamada hadii ay la qaateen wafdiga ka socday dawladda Soomaaliya oo ka hay'adda UNDP ama World Food Program ee dalka oo ka shaqeyso dawladda Kenya gaar ahaan nidaamyada ismaamul magaalada Hobyo meelaha ka shaqeyso dadka balse shalay intii dawladda dalka ay ku imaanayeen waqti ka talaaray diiga caalamiga oo ahayd si jira wala qayb مشاريع الأمور مشاريع قاطسة أو ترشح تبادلك قاطسة عملية من الجراسة عملية جنرال السبيل كسبنا المدارس سبب كل حاجتين كنا نلعب أخبار السكوريتي أو بيجي سبب هي حاجة تمليك المدارس كنت الآن ممكن أن يخلق من الخبير لكن أنا شفت من الرمال الحياة شغل كان المدارس كنت جلال حياة لكن حجرانها حيني يفسحها لنا كفاة مشى التدريب كانوا أجنبي عدالة مثل القانون كمان وقت المشي بأمنيين الوقتي أفسحها كفاة عفوا إلى كمان حالة الأب والسنشة سيدة في كفاة مع التنكة أبو شيء waa garta marka gudoomiye markii kulankaas ay la qaateen ma ay kala idin sheegeen inay ka qaban doonaan deegaanka degmada Hobyo waxay farqada badina horumarinta waxa loo sheegay إلى وحشات كانوا بس في هذا هو قبل دولار أيوة برانجيلي سيدا كانوا هراء يغفر المجال المشاريع كانوا أكملتها تنقلوا ذاتك كانوا مرشتها بحيث الأيام وبقى إخوانيان وإنها مشيئة وإنها مشيئة التطعيمية وإنها نقصي مجلسة كاش وأهمها المجتمع على كعالة كبير كويسيان ويبدأ ماشين عادة على الإحيان لكن الدنيا هذا دولي الشيخان ومشي waa garta markii laga soo tago bal ka waran dhanka wax soo saarka kalluunka oo kaleeto dhanka kale ma yaraadeen weeraradii burcadbeed waxaana qaybta ugu xoog badan qaatay maamulka degmada iyadii ay jireen iyo hawlgalo ay sameeyeen suurtageliyeen ay wiiqaan dhinaca kale waxaa shaqo leedahay atlaanta gurub qarniga oo naafta ka tirsan وأيضا أنا بعمل برنامج نفسي على عبارته شيء طريقة إنه كان أنا أرجع لي ترى بنشوف اللي بيصير على علاقته كنت تاريخ الصوت اللي تقولش بطريقة هذا الحل بالحل اللي قاعد فيه في بدأ في البلد مش مركز عشان تنوكا وأنا معها قبل أن أوصلها وهذا الدراسة أنا بسوي تبقى تنوكا قبل أن أوصلها ويقول استقرارات أحدنا فمن جدة أما خلق ممكن يكون بل هذا الجيل إلى دولنا كيف بدون الوافقة قالت توجد هذا الجيل من المسؤول